waraxmatullaahi wabarakaatuh. fiidnimo wanaagsan dhagaystayaal meel walba aad nagala socotaan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon wararkeena fiidnimo ee caawa ku maqli doontaan waxaa mid kamid ah maraakiibta dagaal ee dalka Turkiga oo ku soo xidhay dekedda Muqdisho. dawladda Soomaaliya oo ka digtay roobab ku soo wajahan dalka. maxaa ka cusub xaaladda galbeedka City ee dawladda deegaanka Soomaalida Turkiga oo ka argagaxay xabaalo wadareedyada reer Falastiin. hadda iyo warkii oo faahfaahsan dekedda Muqdisho ayaa waxaa ku soo xirtay markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga. wadooyinka waaweyn ee soo gala dekedda Muqdisho ayaa gabi ahaanba xiran maadaama markabka dushiisa ay khudbada ka jeedin doonaan madaxda ka soo qayb gashay munaasabadda. markabkan laga leeyahay dalka Turkiga ayaa yimid kadib markii heshiis ay dhowaan kala saxeexdaan dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga kaasoo dhigaya in biyaha dalka Soomaaliya ay ilaalin doonaan Turkigu. heshiiskan ayaa yimid kadib markii dawladda federaalku ay ka carootay heshiiskiisa af-garadka ahaa ee 1 Janaayo ku dhaxmaray Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kaasoo dhigaya in saldhig iyo dekada laga siin doono qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xiriirta khataro ka dhalan kara roobab fatahaado wato oo ku soo wajahan dalka. hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa sheegtay degmooyin ka mid ah gobolada Soomaaliya sida Shabeellada oo kale ayaa waxaa suurtagal ah ay yiraahdeen in ay fatahaado ka dhashaan roobabka ka dii doona maalmaha soo socda sida ay sheegayso saadaashu taasoo wax u dhimin doonta nolosha iyo habnololeedka bulshooyinka aagaas ku nool. waxaa kaloo ay sheegtay hay'addu in sare u kacayo heerka biyaha webiyada Shabeelle iyo Juba taasi oo sababa roobab xooggan oo ka da'aya dalka iyo buuraleyda Itoobiya. galbeedka City ee dawladda deegaanka Soomaalida oo maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen dagaal qaraar oo dhexmaray ciidamada gaarka ee kililka Canfarta iyo Liibooliska deegaanka Soomaalida ayaa looga taageeronaaday ciidamada kililka Canfarta. dagaalkan ayaa qarxay kadib markii ciidamada Canfartu ay ku soo xadgudbeen dhulka deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka City ayagoo wada qorshahoogii ahaa dhul balaarsiga daymeed iyo dhuun yar iyo gablaalu oo ah meelaha ugu daran ee ciidamadu isku farasaareen ayaa waxa waqti haadirkan gacanta ku haya oo la wareegay ciidamada Liibooliska deegaanka Soomaalida kadib markii jab xooggan la gaarsiiyay ciidamada kililka Canfarta. sida xooggan rasmi ah aanu ku helayno maamulka kililka Canfarta ayaa wada abaabul ciidan ay doonayaan dib inay u soo rogaal ceediyaan oo ay weerar ku soo qaadaan dhulka deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka City. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqay baaritaano madax bannaan oo daahfuran kadib markii maamulka Falastiin ay khashifeen boqolaal meydad ah oo yaala hospitaalada. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa sheegay inuu ka argagaxay burburinta hospitaaladii waaweynaa ee marinka Gaza kadib xabaalo wadareedyo laga helay hospitaalada iyo agagaarka xilli uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Gaza. war qoraal ah oo la sii daayay Talaadadii Turkiga ayaa waxa uu ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo hufan kadib markii maamulka Falastiin ay sheegeen toddobaadkan in boqolaal meydad ah ay ka soo saareen hospitaalka Nasser iyo Khan Yunis kadib markii ciidamada Israa'iil isaga bixeen magaalada koonfurta horaantii bishan.